doorashooyinka qaranka oo beeniyay warar laga faafiyay. Amuurta qodobkaasina waxay noo faahfaahinay wariyeen Yaasin Cali Axmed Looya. waxaa dhawaantan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu qaraaraa ee u dhaxeeya laba maleeshiya beelad ee ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Arrintaas kadib dowladda federaalka Soomaaliya ayaa halkaasi waxa ay geysay ciidamada danab si ay u kala dhex galaan beelihii walaalaha ay ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale waxaa halkaasi gaaray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote. waxyaabihii uu ka dhawaajiyay Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya intii uu ku sugnaa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka mid ahaa in nolol ama geeri lagu keenay cid alaale cidii ka dambeysay dilalkii ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose amaba waqtigaasi colaado hor la horinaysay. dagaalkaasi waxaa lagu eedeeyay mas'uuliin oo ka mid ah xildhibaan kala dire oo ka tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabelle. xildhibaan kala dire oo ay su'aalo weydiiyeen CID-da Jowhar kadib waan wareysi yeelan ayaa waxa uu yiri
wata xildhibaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaa ka baxay sawir adigoo sita qori sidee baa lagu helay in adigoo qori sita la helo sawirkaagii sawirkaas waa nin aniga la dhashay oo dhintay Allah u naxariisto oo ciidanka ka tirsanay muxuu ahay waagii dowladii Cabdullaahi ciidamadii kamid ahay sawir waagaas oo laga qaado ahay nin aniga muxuu ahay daahan igu soo xigay oo aan aad u soo gnaawo marka in maxkamaddu ay sawir baraha bulshada muxuu ahay anigu sumcadeeda dilay ku daacaynaya ay iska qaataan ay soo dhigaan baraha bulshada aniga muxuu ahay aadan ugu xumaad arrinkaasi maadaama aan cadaynayo sawirkaas inuu ahay aniga nin ila dhashay oo dhintay Allah u naxariisto oo aniga aanan ahayn sawirkaasi guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay u dhagataagayaan waxa ka soo bixi doona su'aalaha la weydiiyay xildhibaan kala diray sidoo kale waxaa jira mas'uuliyiin lagu eedeeyay horinta dagaalkii foosh xumay ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose